السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني وحبا في الله ولكن أحمد إيو مقال عسب مقالك إن شاء الله ما تقار أهم وحا وتلقالي رير أوستريا خاصة رير فيينا مركا دادي هنا رير أوستريا أما رير فيينا مقال كان وحبا دنو سوكرنا مالها مرك وقت هذا غالية ينكا دومينين سوكل صوتها مقال كان رير أوستريا وتلقال وحيتا هي سأولو سعون المقالة وحا كجرو كورونا فيروس ومسوكل كوفيد 19 أيام مقالة كجرو ميل بدن دولد أما سوكل وراقوي لقد ميسنا وحا لقد ميسنا ويحرنتها أما ميل وراق لغو صارنا وراق لغو دراي وحاسدن ويحرنتها سأولو سعون مرك إن شاء الله ما نتو حنكا عابنا سيدي أدقو تليفون كاد استعمال ama soo kale computerka isticmaalaysid sidee shaqooyin badan ku dhamaysan kartaa hadday tahay waraaqadaas inay dawladdu kuu soo dirto email ay ku dhahdo fadlan emailkan noo soo saxiix noo soo celi adigoo isticmaalaynin printer ama soo kale waraaqad soo saarin sidee emailkaas waraaqada kugu jirto aad telefoonkaada saxiix ugu saaraysaa kadib aad u celinaysaa ama sidoo kale hadaa waraaqad ahaan ay ku imaato adiga lagu dhaho waraaqadan fadlan noo soo saxiix ee noo soo buuxi noo soo dir waraaqadaas sidee adigoo telefoonkaada isticmaalaysid keli aad u iskaan garaynaysaa kadib email ugu diraysaa iyo finance online sidee u samaysanaysaa maadaama lagu jiro xilliga oo canshuurta la xareysanaayo canshuurta u xareysanaysaa ama finance online sidee u samaysanaysaa oo ka caawinaysa finance online in amaanta xareysid family bahilfa iyo soo kale IMS account wax badan ayaa ka samaysan kartaa finance online kaligeeda iyo soo kale waxaan ka doonaa haddaba e-cardkaada maanta uu kaa lumo e-cardkaada sidee online ugu dalbanaysaa adigoo maanta telefoon qof mail ka wicin ama sidoo kale mail la xiriirin keli online ayaa ka buuxinaysaa mail waxaad dhahaysaa magacayga waa sidaan nambarkayga waa sidaan waxaan waa sidaan automatic e-cardkaada xaafad ayaa lagu soo diraa iyo telefoonkaada good habeenkii sidee online ugu buuxsanaysaa hadduu good habeen ka dhamaado adigoo qof wicin mail aadan waxna samaynin telefoonkaada keli adigoo isticmaalay sida good habeen telefoonka ugu shubanaysaa marka intaas ayaan iska doonaa insha Allah iyo soo kale pages oo dawladda ay leedahay ayaan online idinka tusin doonaa marka warka idinku dheereyn computer oo sii gudubno soo aragno shaqadaas sida u qabanayna iyo waxa sida u sameynayna marka ugu horeysa da e-card dalbanaysa adahan pagekan keli ayaa imaanaysaa marka insha Allah linkiyada aan ka hadli doono ama pagekan ka hadli doono dhamaantooda linkiga aad pageka ku galaysid adigoo waxaan dhan qorin waxaan ku dhigi doonaa videoga hoostiisa waxaad arkaysaa magaca oo qoran tahay e-card soo kale hoos waxaan ku dhigi doonaa linkiga e-card ah ku galaysid ama pageka e-card ku galaysid ama soo kale finance online soo kale linkiga ah ku aadaysid marka aan u sii gudbin halkan waxaad dhigaysaa e-card bishtel waxaad buuxinaysaa halkan keli forname nakhname numberka e-cardkaada xiliga dhalatay iyo addresskaada buuxinaysaa number telephone iyo email u baahan tahay iyo sababta uu kaaga dhumay keli ayaa meeshan gelinaysaa waxaad dhigaysaa wuu dhumay ama wuu halaaway marka intaan buuxisid waxaad dhigaysaa keli viter marka viter dhahayd caadi ahaan had aniga e-card igama dhumay marka e-card na buuxiyo baahni viter aad dhigaysaa marka viter aad wuxuu ku saaraa adiga informationkaada ma hubta inuu san yahay haa waxaad dhigaysaa kadib dir markaad dirtid 2 maalin ilaa 3 maalin gudaheeda e-cardkaada xaafad ayaa lagu soo diraa insha Allah بيش كلا واحد شرح دون إن شاء الله وفينانس أونلاين حتى فينانس أونلاين هيستن وحكون فنيسا كلي مش يقولون تهاي أونلاين إرست أمل دون إنما واجب مهما تنا أد فينانس أمد حلقة يكون فنيسا كلي أونلاين إرست أمل دون marka ku dhufaysid halkan ayaa u buuxinaysaa soo kale naqnama hada gelinaysaa forname numberka e-cardkaada maxaa tahay adiga public mailing ma tahay addresskaada soo kale iyo hadaa adiga sharciga leedahay sharcigaada noociisa gelinaysaa hadaa leedahay furushanka numberkiisa gelinaysaa ama numberka passportkaada gelinaysaa waxa aad haysid ayaa meesha gelinaysaa number telefoonkaada iyo magac aad doonaysid inaad ku gashid waa adiga username oo kale waxaad dhigaysaa hadduu yahay magacaada waxaad dhigaysaa Ahmed waxaad dhigaysaa Ahmed 12 ama 21 waxaad gelinaysaa waxaad dhigaysaa kadib viter marka viter dhahayd caadi ahaan waxa ku imaanaya maalmo gudaheeda waraaqada ku imaanaysa waraaqada ku qoran tahay 3 number ama 3 magac uu qoran yahay magacaas oo kan kookana uu yahay iyo soo kale magac labaad kan iyo pinka marka inta gelisid automatic waxa dhigaysaa kali amel dun marka amel dun dhahayd shaqada dhan meesha ka dhamaysan kartaa haday tahay shtoy oskay haday tahay family bahilfe soo kale haday tahay IMS haday khusayso marka soo kale waxaa jira hadaa maadaama pagekana joogno hindi signature waxa la jiro hadaa hindi signature aad dalbatid adigoo waxaan dhan qorin ayaa inta ka gali kartaa waxaa qoraysaa keli number telefoonkaada iyo password aad samaysatay marka wixii dhameysay adaan geli number telefoonkeeda hadaa meesha aan geliyo iyo passwordka aan samaysay meesha geliyo oo dhaho soco isla markii telefoonkii waxa ay soo dhacayo bin ay soo dhacay marka binkaas fartii aan saara marka fartii saaro automatic page ka caadi u gali kara marka pages badan oo dawladdu waxa ku isticmaal kartaa baalka la dhahayo hindi signature marka labadan page insha Allah linkooda waxa kala doontaa videoga hoostiisa sidoo kale page kan hadaa u baahan tahay formal oo aad buuxinaysid sharciga uu ka dhaco ama daa sharci waraaqad u baahan tahay inaad buuxisid ama sharciga xareysanaysid waxaan dhan waraaqadooyinka formulaha dhan inta ay ka helaysaa marka asagoo soo kale Soomaali wuu jiraa formalku sharxay wuxuu yahay wax dhan halkan ka helaysaa ku dhufanaysaa kali markaasaan kugu soo buuxo caadi ahaan Soomaali ayuu kugu sharaxan yahay sidee wax u buuxinaysaa sidee u qoraysaa waxa dhan meesha ay ka arkaysaa pagekina afaraad waa hadaa doonaysa ama xaafad aad guuraysa aad samaysanaysa mail settle wax ku dhufanaysaa kali halkan qoraysaa marka qortid pageka ugu horeeya ku soo baxaya aad ku dhufanaysaa marka ku dhufat halkan aad taabanaysaa kali meeshan
عفوا دي والله مركله سان كوتسيو meeshan ay qoran tahay mail settle kadib aad ku dhufanaysaa page kale oo kuu furmaayo waraaqada hada online caadi ay u buuxin kartaa marka online ka u buuxisid saxiixan sidoo kale saxiixi waa saari kartaa halkaan ka saaraysaa saxiixa se u saaraysaa telefoonka ayaan kaa tusin doonaa dhowdii sidee saxiix u saaraysaa markaa saxiixi aad saartid emailka ugu diraysa sidoo kale waxaa ka helaysaa haddaa ku dhugata halkaan waxaad dhehaysaa keliya offline site iyo adereesadooda sawjadin magistraadka adiga ku qaabilsan ama xaafada degan tahay midka kuu dhow adresskiisa sidoo kale iyo number telefoonkiisa adiga waxaa qaadanaysaa emailkan iyo waraaqada uu buuxisay oo PDF ah ayaa ugu diraysaa marka afartan waa afarta page aan halkan ka tusinayo haddaan telefoonka sii gudubno waxaan isticmaali doonaa insha Allah laba barnaamijkan oo ah HP Smart aan ku isticmaalayno waraaqada lanoo soo diray aan gacanta ku haysano waraaqada sideen scan u marinaynaa aan email ku diraynaa ama email ahaan qof ugu diraynaa waraaqada lagu soo diray for example ahaan waa saxiixday waa buuxisay afwan waa buuxisay waa saxiiba anna samaysay marka wixii dhan dhameysay waxa u baahan tahay inaad waraaqadii scan saartid barnaamijkan kaliya ku dhufanaysaa oo la HP Smart markuu sidan kugu soo baxo barnaamijka waxa uu soo degaysaa hoos meesha qoran tahay camera scan marka soo kale barnaamijkan sida loo soo dejiyo iyo sida loo isticmaalo iyo qaybtiisa wax badan oo dhameystiran muqaal oo gooni oo kaligiis ah muqaalkan aan ku sharxay marka hadda aad channelka YouTube-ka waa kala doontaa insha Allah muqaalka asagoo dhameystiran asiga iyo barnaamij kale okay marka waxaan u fiirinaa meesha ay qoran tahay camera scan marka staan ku soo baxaa kaamirada ku furay markuu kaamirada ku furay waxa ku aadinaysaa kaliya waraaqadaada waxaad dalban kartaa manual afar iyo automatic hada automatic dalbat asiga ay automatic waraaqad isku jirinayo hada automatic ku dhufto soo jeedin waraaqada automatic asiga ayaa iska issaarayo markuu scan ka dhameeyo waraaqada scan ku saaray halkan kaliya ku dhufanaysaa soo jeedin waraaqada oo adiga aad samaysay scan ku saaray ku saxiitaan gacan ku saaran yahay marka waxa dhigaysaa kaliya share garay share maxaa doonaysaa magaca waraaqada bedelaysaa aad qoraysaa haday tahay waraaqad adiga oo dalab lagu soo diray dalabka uu buuxisay magaceeda qoraysaa marka magaca ka dhameysid waxaa dhigaysaa afwan marka dhameysid waxaad dalbanaysaa PDF sababtoo ah waraaqad adiga oo A4 ah oo PDF oo qof bedeli karin kadib waxaad dhigaysaa share garay hadaa aad soo kale sawir ah oo ku sawir garaysan kartaa laakiin mar walba dalba adiga meesha qoran tahay PDF marka PDF dalbatid waxaad dhigaysaa share maadaama oo email ku diraysid emailka ku dhufanaysaa kaliya automatic emailka ayaa gelinaysaa qofka aad u diraysid marka soo kale WhatsApp ku diri kartaa hadaa WhatsApp aad waxa ku soo baxay adiga WhatsApp-kaada qofka aad u diri kartaa iyo soo u sheegay emailka hadaa ku dhufatid emailka ku diri kartaa waxaa gelinaysaa kaliya emailka qofka u diraysid ama shirkadda u diraysid ama soo kale magaca emailka oo dawladda u diraysid okay soo kale telefoonkaada oo ku save garaysan kartaa magaca bedelaysa magaca qoraysa waxaad dhigaysaa kaliya save automatic wuxuu ku save gareysmay telefoonkaada barnaamijkaas waa barnaamij koowaad aan ku sameynayna scan saan hor u sheegay linkigiisa ama barnaamijka linkiisa waxaan ku dhigi doonaa insha Allah videoga hoostiisa si loo soo dejiyo insha Allah hadda ayaan ku tusin doonaa insha Allah hadda waxaan sharxaynaa barnaamijkeen labaad oo ah barnaamijkan oo waraaqada lagu soo diray email ahaan lagu soo diray marka waraaqada gacanta kuma haysid email lagu soo diray marka xarta waraaqada email lagu soo diray inaad buuxisid aad saxiix saartid adigoo isticmaalaya kaliya telefoonka barnaamijka intaan furin waraaqada soo dejinayna for example ahaan emailka ama page-kan hore oo ku sharxay oo mail settle-ka ah ama waraaqada adresska meeshaan imaanaysaa kaliya waxaad dhehaysaa waraaqadan ii soo deji for example ahaan waxaa xariisinaysaa mail settle ama waraaqada buuxinaysaa soo aragtay hadda mail settle-ka wuu soo degay ama waa soo degsanay okay haddaan dib u laabano page-kan waa sidoo kale waa sidan marka barnaamijkan usoo laabanayna aan sharxi rabno barnaamijkan furo aniga caadi ahaan hal mar aan ku dhufanaa markaan barnaamijka furo sidaan ugu soo baxay okay marka waxaan ahaa aniga halkan fail igu soo dar maxaa doonaysaa fail PDF ay igu soo dar failka automatic halkan uu ku soo gudbiyay marka adiga waxaad dhigaysaa kaliya halkan ku dhufo waxaad dhigaysaa waxa u baahanahay download soo toos halkan ku soo saaro failka ugu dambeeyay aad soo dirisay waa kan mailsettle.pdf asiga furaysaa hadaa magaca ama wax dhan aad soo buuxisay online waa okay hadaa soo buuxin soo kale meesha magaca tagaysaa family name-ka for example ahaan halkaan tagaysaa qoraal karta qoraysaa Ahmed okay halkaan ka yareynaysaa soo kale meesha waa geyn kartaa ida qoraal saarta dhaqaajin kartaa halkaan ku daa sidoo kale family name phone name naqna wax dhan ayaa meesha dalbanaysaa marka wixii dhameeyay waxa u baahan tahay inaad saxiix saarid ama waxaa dhaca kara waraaqad oo adiga buuxsan diyaarsan in lagu soo diro dhaha kali saxiix noo saar marka maxaa sameynaysaa halkan ay imaanaysa meesha qoran tahay qalinka waxaad dhigaysaa kan ugu horeeyo oo ah saxiix ii samey
صحيح هذا مركا كان صحيح هذا فرضا waxaan dhahaa aniga Axmed magacaygan qoray hadda adiga suro hada صحيح hada kadib waxaad dhahaysaa waa dhameeyay hada saxiixday hadda halkan taawatid waa kan haddaan ku dhufto saxiix uu soo koray waxaan saaraa meeshan oo saxiix looga baahan yahay saxiixan saaray ilaa halkan haddaad waa yareyn kartaa oo weyneyn kartaa adig ku xiranta saaratid ilaa halkan saxiix ii saar markaan deeyo faraha soo jeedin kalarka madow noqday soo kale taariikhda laga dalbaday taariikhdu ay tahay maanta dhigaysaa 12-ka bisha afaraad 2020 soo kale farta ii yaray halkan keen okay dib u laawo soo jeedid waraaqada oo buuxinay saxiix waa saarnay kan soo kale qarada ku soo koray waxa dhigaysaa waxa qalad ah oo saartay waa ku dhufanaysaa kii waxa dhigaysaa delete waraaqadan waa saxiixinay qoraal oo buuxinay waxa dhigaysaa kii share garay marka la sidii ku soo saaray email ma doonaysa inaad ku share garaysid whatsapp ma doonaysa whatsapp qof ugu diri kartaa doonaysa saaxiibka waxa dhigaysaa saxiix waraaqada oo buuxi waa kana message igu dir ama emailka oo shirkada igu dir ama emailka dawladda igu dir hadda qof kale uu yaqaan ama soo kale dhigaysid gmailka igu share garay marka automatic waxa gelinaysaa emailka gmailka rabta inaad ku share garaysid marka waa aragnay sida aan u saxiixinayo soo kale sida aan u isticmaalno marka waxaad u baahan tahay barnaamijka inaad soo dirto waxa ayaysaa kali Google Play aadaysaa oo halkan aadaysaa Google Play kadib waxaad qoraysaa kali barnaamijka magaciisa oo la dhahayo Adobe File marka barnaamijka magaciisa qortid waxaad dhigaysaa kali hadda iga saar barnaamijka telefoonka saar waxaad dhigaysaa soo deji marka soo dejiso automatic telefoonkaada kugu shmo waxaad dhigaysaa kadib open aad dhigaysaa iyo midka kale dhahayo HP Smart sidoo kale asigana ku dhufanaysaa kadib waxaad dhigaysaa iga saar hadduu kugu degsanin kadib waxaad dhigaysaa ii soo deji marka barnaamijkeena uu soo degay marka soo kale barnaamij kale oo aan isticmaalaynay ama aan soo dejin soo kale asagana uu soo degay waxaad dhigaysaa kali barnaamijka ifur automatic barnaamijka sida uu kugu furmaa ama telefoonka dhexdiisa ka jirta barnaamijka caadi oo helaysaa waxaad dhigaysaa document igu soo dar document noocee halkee rabtaa ma ogoshahay waa ogolahay aad dhigaysaa halkan document taale ii soo qaad ama soo kale document meelaan kugu jirto ii soo qaad documentiga aad soo qaadaysaa saxiixa saaraysaa kadib waxaad dhigaysaa share garay halkee emailka doonaysa ama meesha doonaysa ayaa ku share garan kartaa soo kale qoraal oo qori kartaa hadda dhigaysid magac aan buuxina ama waxaan buuxina ama mail ayaan x saara waxaas dhan waa samayn kartaa hadda halkan imaado for example ahaan markaa wax tusiyo hadda halkan waxaa lagu dhahay waxaad dalbanaysaa male iyo family waxaad dalbanaysaa nin ama naag hadda halkan ku dhufto soo jeedin automatic x wuu saaray ama kan x wuu saaray ama kan x wuu saaraa meel ba adiga aad dalban kartid oo afar gees ah oo wax laga dalbanayo x caadi ay u saari kartaa soo jeedin marka waa barnaamij oo ka caawinaya maanta inaad printer ama soo kale scanner u baahnayn inaad isticmaashid soo kale labada link oo barnaamijka kusoo insha Allah waxaan ku dhigi doonaa muuqaalkan hoostiisa marka insha Allah waxaan arkaynaa telefoonkaada si good habin ugu shubanaysa adigoo isticmaalaysa computer soo kale oo isticmaalaysa telefoon waa is arki doonaa marka aad isticmaalaysid computer waxaad ku qoraysaa kali Google waxaad dhigaysaa Dry sharikada isticmaalaysa tahay Dry ama A1 Dry good habin for example ahaan aufladen good habin aufladen marka intaan qortid waxa ku soo baxay adiga dhowr page ku soo baxay hadda dhowrkan page waxa ka dalbanaysaa kali adiga meesha qoran tahay www.dry.at kan ka dalbo marka dalbadid waxa dalbanaysaa good hound bank credit ama online banking kadib waxa qoraysaa hadda number telefoonkaadi oo ka bilaabanayo 060 marka qorto number telefoon waxa dhigaysaa in lacagta bixiyaan rabaa imsa 15 euro 20 euro kadib waxaan dhahaa lacagta inaan bixiyaa marka sii socdo in yara sugaysaa ilaa aad ka soo bixiyo dhowr khiyaar lacag ku bixin kartid hadda waxa ku meesha numberka halkan kugu qoran yahay lacagta bixinaysa waa 20 euro halka ku bixinaysaa credit ma ku bixinaysaa visa card ama soo kale online banking marka adiga hadda sidan kugu soo baxo waa okay hadii kale waxa ku soo baxay meel qoran tahay software marka kaas aad dalbanaysaa ama kana dalbanaysaa marka caadi ahaan bangiga caadiga marka isticmaalaysa kana aad dalbanaysaa asiga kaliya marka dhufanaysaa waxaad marka bangiga dalbo hadda isticmaalaysa Erste Bank ama Bavag halkan caadiga ugu dalbanaysaa bangigan dalbaday waxaan dhahaa kali Betsalen
okay weiter. marka saa ujeedin bangiga wuxuu kugu soo gudbiyo automatic bangiga Erste Bank waxaa gelinaysaa kili numberka bangiga halkan iyo soo kale binku soo dhacaya xaqiijinaysaa kadib guthabankaada caadi ay ugu shubatay adigoo banaanka bixin soo kale isticmaalaysid sharikada Magenta ama T-Mobile ama A1 kulli waa isku midkii waxaa qoraysaa kili Magenta Guthaben aufladen waxaan dhahaynaa Magenta Guthaben aufladen isla sidii page-kana fiirinaysa soo qorantahay adiga oo magenta.at okay anneem sidii ku soo saar number telefoonka halkan qoraysa marka qorto waxa dhaysa adiga waxaan rabaa inaan bangi ahaan ku bixiyo hada caadaha aniga numberka oo wuxuu ku save gareysan yahay oo internetkayga marka adiga numberka qoraysa marka numberka qortid isla markaa waxaad dalbanaysaa online banking waxa dhaysa kadib guthabankayga ugu shub A1 sidoo kale waa kulli waa isku midkii marka waxa qoraysaa kili sharikada isticmaalaysid Guthaben sharikooyinka dhan waa isku midkii adiga waxa qoraysaa kili sharikada isticmaalaysa tahay A1 waxa dhaysaa Guthaben aufladen marka page ku soo baxayo oo sharikada A1 san jirnayna hadda farsana kan oo kale A1 Guthaben online aufladen marka uu soo soo baxo waxa dalbanaysaa meesha qoran tahay Guthaben aufladen halkan ilaa 100 euro aufladen ku sameyn kartaa lacagta gelinaysaa meeqa 15 euro 10 euro 20 euro halkan ugu daraysaa number telefoonkaada kadib waxa dhaysaa bitsal marka adiga ama bishteen la dhaysa marka dhahato wuxuu ku dalbanaa inaad geliso marka adiga number bangigaada iyo waxaada taasina caadi ahaan way fududahay number bangigaada kaarkaada gadaashiisa qoran tahay meesha ay caadi ahaan ugu qoraysaa marka sidoo kale xataa telefoonkaada isticmaalaysa telefoonka waxa aadaysaa kili Google aadaysaa waxa qoraysaa wixii hadayaan qornay oo ahayd daray Guthaben aufladen isla sidii ku soo bixinaa page-ka dalbanaysaa marka page-ka dalbad waa isla sidii computer-ku ahaa kanaan ku dhufanayna meesha qoran tahay Guthaben baa credit meesha qoran tahay asigaan dalbanayna number telefoonka oo u baahan tahay halkan qoraysaa marka number telefoonka oo qortid shaqadii aad ku sameeyay computer-ka isla nooc ee sameynaysaa marka telefoonka iyo computer-ka waa isku mid hada Guthaben telefoonkaada online uga iibsanaysid isla markii marka adiga waxa ku soo dhacay SMS ku soo dhacay in Guthaben iibsatay Guthabenka asiga ay automatic active noqonayo marka uma baahnid in adiga numberka Guthaben aad qortid ama soo kale waraqada soo iibsid ama in aad banaanka u baxdid muuqaalkiina maanta meesha inuu ka markaa rajay lahaa inaa fahanteen soo kale ka faa'iiday marka walaalkiina Axmed waa inoo muuqaal cusub wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh